وجاز كنا أنا وحن كوا جانين معارضة أو وحويا ضد معارضة هنا كشقيان كمان وجين دي وجاز شوجا بورا ما أما سومال وحاي توبيا كسعودة نجدينا وخصيان جمهورية الصومال لأن مركا عيدي كسود دوشو إن ليس بربر تاجو أو وحي عيدنا القرية اللي يرتا دفاع بقى لقى maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan soo booqnay gobolka waxaan la socday wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ah mas'uulka u sareeya ee gobolka Awdal arrimo badan awgeed madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku soo noqnoqday gobolka shalay toole iyo daraad iyo maalintii kasii horeysay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku sugnaa gobolka wuxuu yimid xaaladda maanta ay maraya gobolku oo xaalad wanaagsana oo roobkii noo daay oo barwaaqo kaliya waxa bogaadin mudan oo aan ku bogaadinayaa madaxweyne ku-xigeenka sida qiimaha iyo milgaha leh ee uu iskugu keenay bulshooyintii reer Awdal oo dhan iyagoo isku dhan oo mid ah wuxuu ka shaqeynayay in dhammaan wixii waxa weeyaan reer Awdal gobolka oo dhani si midnimo ah oo wada jira wax loo wada galo haday tahay xagga nabadgelyada haday tahay xagga horumarka haday tahay waxa weey xaaladaha ka taagan imika wadankeena u baahan midnimo in laga gudbo madaxweyne ku-xigeenku wuxuu iskugu yeeray bulshooyinta iyo acyaanta reer Awdal oo dhan oo ay ka mid yihiin dhaqanka aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo dhammaan acyaanta iyo waxgaradka reer Awdal oo dhan buu madaxweyne ku-xigeenku isku yeeray talo fiican oo tusaale ah buu siiyay waa la isla gudoomay meel fiican baa la isla dhigay waxa la isla gartay in meel looga soo wada jeesado wax kasta oo ku xun nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland damqaya ama ku xunba in foojignaan dheeriye gobolkeenu maadaama waqtigan uu iska yahay waqtiyo kala guura aad loo dadaalo oo dadku isku duubnaadaan isku mid ahaadaan cid kastoo la yahay iyo xisbi kastoo la yahay laga wada shaqeeyo danaha caamka ah sida nabadgelyada iyo cidii wax u dhamaysa jamhuuriyadda Soomaaliland marka cidi ku soo duusho in la barbar taago oo wixii ciidana la qorayo iyo dhalinyarta difaaca laga qayb qaato arintaas si fiican oo wanaagsan ayay u soo dhamaatay aad baan ugu bogaadinayaa madaxweyne ku-xigeenka oo ku suntan isku haynta shacbi weynaha reer Awdal gaar ahaan gobolkan dib ka soo jeedo sidoo kale isagoo madaxweyne ku-xigeenka qaranka ah oo gobolada dhan u adhex haddana si gaar ah gobolka Awdal waa gobolkii uu ka soo jeeday madaxweyne ku-xigeenku talo weyn oo waayeel oo waxgaradnimo ayuu shalay siiyay dhammaan waxgaradkii reer Awdal oo la kulmay si gaar oo la kala kulmay si ballaaran oo waxa weeyaan midaysan oo la kulmay arrimahaasi khayr bay ku soo dhamaadeen sidaas oo kale alxamdulilah rabbil caalamiin sideedaba waxa jirta nimco kasta waxay leedahay nusqaan hadaad aragto barwaaqo meel ay barwaaqo ka jirto dabcan abaar baa iyada meel ka jirta hadii ay wax alaab kale waxa weeyaan nicmooyin yahay meel ka dhigo masaa'ib iyo dad kale oo ayaa iyada meel ka jira waxaan dhagahaygu ku soo dulduulayeen dad warxum ka tiisheela oo dadkaan ahayn wanaag ka taliya oo dhagahooga aan ka maqlayay waxba la shiraya iyo shirarba ka socda halkan jaarkeena iyo wax noocaas oo ugaaskii shiraya iyo wax noocaas inagu waxaasi waxayna khuseeyay hadayna reer Soomaaliland maaha niman reer Itoobiya iyo dadka deegaanka aan inaga ahayn haday shirayaan haday shiraynba inaga waxaynaga khuseeyaa sidii ma jirto ugaaskana anigu waxaan ku ogaanay macarada oo waxa weeyaan dad macaaradina ku shaqeeyaan kumaan ogeyn dee ugaas jooga boorama ama Soomaaliland ba sidaas un baanan dayla hadaan ku ogahay dadka boonboonanaya oranaya waxba la shiraya ugaas baalka imanaya waxba imanaya macnaheedu anaga waxaasina dhaga bartayn maayaan xukuumaduna way la socotaa u malayn maayo waxaas waxna khuseeya inta reer Soomaaliland waxa ku fikiraysana waxa la waxa ka waantooba u soo wada jeesta horumarkiina iyo sidaad wax weeyaan oo la jaan qaad lahayd caalamka waxa Itoobiya ka socda inaga dayna khuseeyaan haday shiraya hadayna shirayn wax inoo yaala maaha
inaga waxayna khusaysaa xuduudda somaliland ee waxa weeyaan aynu reer somaliland nahay intaana nabadgelyan koonahay gobolka dadkiina la shaqaystay iyo ciyaantii oo dhan waxay sheegeen inuu khayr ku jiro oo waxa weeyaan wax dhibaato aanu jirin dadka waxaa ku fikiraya dhalinta ka dhiga bartayna waxaa ka waantooba waxaasi waxa dadkii saaxdheer uga yimid sool ee dumiyey maanta waa kuwa waxba ka qaban kari lahaa marka taas oo kale ayaan la soo rarin inaga xagga waxba inooga iman maayaan aad baad u mahadsantihiin jazakumullah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu